waxaa ka mid ahaa waxyaabaha shalay lagu celcelinayay la yidhi waxaa ka maqan farta af soomaaliga da waxa la yidhaahdo dhawaaqa da edeb markaad leedahay aadan markaad leedahay waa dhawaaq oo u dhow th-ka ingiriisiga maaragtay da maxaa looga booday markaa waa in lagu daraa ayaa la yidhi taas marka horaa loo baaray waxaan idin iftiiminayaa ereyga markuu dhexda ku jira oo labada dhinac shaqal ka raacsan intervocalic ay yidhaahdaan daalkaas wuxuu u dhawaaqayaa da laakiin marna ma arkaysid xarafka da oo da ku bilaabanaya af soomaali kuma arkaysid vowlkaas ama shaqalkaas ayaa isa saameyn baa jira edeb markaad leedahay e baa ka horeysa edeb laakiin dal markaad leedahay dal ma lihid ii sheega hal erey oo da ku bilaabanayo soomaali ah ma jiro marka waa midda labaad haddii aan idhaahdo edeb ama aan idhaahdo edeb macnihii ma isbedelaya dhawaaqa ha xumaadee waa su-aal micnaha isma bedelo magaastay tan keliya ma ahee xataa soomaaliga waxaa ku jira p pa baa ku jirta ba'da markay bilow tahay waa baab balli laakiin marka shaqal ka horreeyo ama ay ku dhammaato dab ma aha dab waa dab 1988 u malaynaa 79 anagoo itaaliya joogna ayaa arrimahan baarnay makiinadaa la geli oo makiinadaha maxaan ku yidhaahdaa sheega dhawaaqa siduu kor u aadaya ee hoos waagaasaa la ogaadee waxyaabahan mar horaa la baaray marka waxaan la isku mashquulinaya laleeyahay kan kuma jira aan dhammaystira maadaama macnihii aan isbedelaynin maadaama aan ku bilaabanaynin xarafna waxaa la yidhi looma baahna xigmadda alifba'da loo sameynaya waxyaabaha lagu saleeya waxay tahay sida loo maxaanku yidhaahdaa loo dhaqaaleyn karo loo yareyn karo ayaa af loo yeelaa afka alifba'diisi laga dhigaa waxaan isku khaldaynaa marka waxaa la yidhaahdaa phonology afka codaynta afka uu leeyahay iyo alifba waa laba isku xiran laakiin kala ah haddana phonologyga midda la yidhaahdo ama codaynta waa daraasad jaamacad ama qof si gaar ah wax ma aragtay uu rabo inuu barto ma garatay ardayga marka aad dugsi dhexe aada u dhigaysid biology haddaad u gashid maxaan ku yidhahdaa geniska wuxuu ka kooban yahay intaas chromosomes maad u gelaysaa mise dhirta waxay u baxaysaa sidaas iyo sidaasaad leedahay war cilmiga biology bar ma aha maskaxda waxaa waaye intaasoo bilyan oo waxaa ku jira unugyo inaad u dhigtid ma habboon tahay maya wax walba meeluu leeyahay alifba'dana waxaa la sameeya waa la beekhaameeyaa inta laga maarmi karo waa laga saaraa intaan laga maarmi karin ayaa lagu daraa marka labada ayaan la isku khaldin tan waa mid marka shaqalada la leeyahay oo maaragtay duul iyo duul mar horaa waxaan maaragtay la dhameeyey maxaa looga tegay duul shaqalada soomaaliya haddii dhinaca phonologyga aan aadno waa 20 ama 19 laysku haystaa kuwa dheerdheer waa 10 kuwa gaagaaban waa 10 ooda iyo o a iyo a i iyo yacni mid walba waxay leedahay 4 dhawaaqay leedahay maxaa loo wada qori waayo oo afafkii naga horreeyaba ma raadsanin waxaas
ingiriisiga oo maanta adduunka uu qabsaday iyo af soomaaliga farta af soomaaliga ayaa ka rasmisan ka fudud. ingiriisiga naftiisa wuxuu leeyahay xarafka a ingiriisiga 4 nooca loogu dhawaaqaa. shaqal dheer uu leeyahay, mar oo maartay shaqal gaab uu leeyahay. gacanta ingiriisi maxaa la yiraahdaa? amma la mis am waa shaqal dheer, laba ama la qoraya ma jirto. marka aad leedahay af ingiriisiga misaal mar waxaa jirta loogu dhawaaqayo maxaan ku yiraahdaa ego. anu ingiriisi waa laga royahay laga joogo marka aad leedahay iyadoo a ku bilaabanaysa ago ma leeyahay waa isbedelay. father waa marka aadar runta waa kaas. father lama yiraahdo. hat marka aad leedahay ma waa codkii waa isbedel ayaad leedahay. iyo waxa la mid maaragtay 4 cod waa shaqalka keliya. ma leeyahay ingiriisi? maya. af carabeedku wuxuu leeyahay 3 shaqal uu leeyahay, waa run. laakiin haddii lasii baaro 4 uu leeyahay. buu af carabeedku waa leeyahay. suuraddii qur-aanka bal aan soo qaadana bismillaahi maxay ahayd? bismillaahi tii majreeha aayadii majreeha miyaa mise majraaha waay soo maaha. maxay tahay? waa ama ma ah marka aad leedahay beyt aad leedahay af carabiga ma bayt maad leedahay mise beyt baad leedahay waay. carabiga marka haddaa gashid ama qur-aanka haddaa gashid way ku jirta, ma la qorin. marka af oo 100% alfabeetadiisa ama alifba'diisi waafaqsan inta cod uu leeyahay af jira ma jira. haddii la qoro waxaa adkaanaysaa maxaan ku yiraahdaa dadweynaha aan wax baranin sidee ay u qori lahaayeen adag tahay. waxyaabaha shuruudaha lagu xira marka far la qorayo waxay tahay war waxaan qofka aan wax baran ma baran karaa waay. looguma talagelin far aqoon-yahan looguma talagelin. tan labaad aan ilowsannahay waxay tahay farta waxaa loogu talagalay dadka u dhashay afkaas ayaa loogu talagalay. maxay ugu fududaynaysaa ninka ajnabiga edeb ha yiraahdo edeb udub ha yiraahdo maxaa iga galay. laakiin ninka Soomaali waa fahmay. maxaa yeelay markaan ingiriisi aan baranayo sida aan u qoraayo sida loo qoraayo ma si kale u akhriba lillah waa lagu khasbay. annagan waa ku khasbaynaa ninka maartay sheeyay inuu u akhriyo sida annaga aan u qorno aan ugu dhawaaqo. dada waxay leeyihiin maartay inan saan u kala saarnaa isku sibaa loo qoraa. maartay taas waxay tahay carabiga le aan qaadano xaraf ama erey ka kooban ka siin iyo ra say u akhrin laheedeen bes maxaa kale 4 jirto. kasara waan sheegnay. kisra waa badan yihiin. kusira mabna majhuul kusira marka waa badan yihiin. carabiga ereygaas saad ku garanaysaa waad ogtihiin carabiga inaan maartay shaqal la saarin sida caadiga haddii aadan alfila kordhowe markaas lagu baraayo mooye see lagu garanaa waa kaas context waxa la yiraahdo ama jumlada ku jira. Soomaaligan waxaad ku garanaysaa maxaa naga rabay inaan waxaad ka garanaysaa jumlada. waa dhici kartaa mar ay isu dhow yihiin laakiin shart ma aha exception yar inaad tiraaha afka dhan maartay xarafka la geliyo meeshaas ayaa jirta.